أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد سلام وأنا محمد عبد الله وما تلقاني idinku soo gudbin doona cashir aad u muhiim u ah. casharkaas oo aan kugu tusi doono sidee loo sameeyaa dynamic income statement design-kiisa adigoo isticmaalaya Excel. So first waxaan ku tusi doonaa sidee loo sameeyaa design-ka income statement. Then waxaan ku tusi doonaa sidee looga dhigaa dynamic oo aan kala jeedo income statement haddii uu faa'iido timaadan si automatical net income ay soo bixi doonto, haddii uu khasaaro yimaadan si automatical ay iska dhigi doonto godkaasi net loss. So first waxay imaan doontaa si ay waxaas oo dhan u sameyno. First waxaan imaan doonaa selkan, dan waxaan ku qori doonaa company-ga magaciisa, tusaale ahaan Mohan company oo kale. So markaan ku qoro kadib waxaa la garan doonaa soma. Markaan xaalad garay kadib waxaan doonaa merge center, dan farta ii weynay, dan waxay dhigtaa Algerian oo kale. Dan halkaan ma waxaad ku qori doontaa waxaad sameynayso waa maxay, waa income statement. So halkaan ku qor marka so waa qortoma, dan qabo xaalad garay merge center leh, dan farta ii weynay oo kale waxay dhigtaa this oo kale, waxay dhigtaa bold oo kale. So halkaan ma waxa ku qori doontaa halkaan selkaas waxa ku qori doontaa period-ka, tusaale ahaan January 1st 2018 to January 31st 2018. then markaa qorto kadib xaalad garay, dan waxaa dhahdaa merge center, dan farta bold iga dhig ii weynay oo kale, so this iga dhig oo kale. Okay, dan waxay imaan doontaa selkan waxaa ku qori doontaa selkan maadaama aan ku qori doono wixii revenue ah iyo wixii expenses ah, so waan weynaysan doonaa. Okay, waan weynaysan soma. So halkaan aan ka bilaabo doona waxaan ku qori doonaa surface revenue. So surface revenue waan qorso. Okay, okay, then waxaan dhihi doonaa less, waxaa ka jari doontaa expenses. Okay, so wixii expenses oo dhan halkaan ayaan ku taxan doonaa. Waxaan dhihi doonaa inaan loo mar click siiyo, waxaan dhihi doonaa backspace loo mar, waxaan ku qori doonaa advertising expense. advertising expense. Then soo kale loo mara backspace dhihi doonaa, waxaan ku qori doonaa salary expense. Okay, then enter dhihi doonaa, waxaa kaloo ku qori doonaa backspace aan loo mar dhihi doonaa, waxaan ku qori doonaa rent expense. So mujid, so ilaa inta expenses u baahan tahay halkaan ku taxan doontaa. Okay, dan halkaan waxaa kaloo igu qortaa saddex mar backspace iyo waxay igu qortaa total, waa total expenses. Okay, so last halkaan waxay igu qortaa net income. Okay, net income igu. Okay, so intaas markaan sameyn kadib farta igu qurxi aan dhihi doonaa, waxay iga dhigtaa farta bold iga dhig, xaweer ii weynay. So ma jeed, so noocaas ka dhigan kartaa, so adiga taasi ku gaartay. Okay, so selkan intaan sel in ay calaamayso waxay maadaa halkaan waxay iga doortaa tick. Okay, then intaan ay calaamay waxay iga dhigtaa soo kale tick iga door. Okay, so intaas waa sameysama. So halkaan maadaama waxaa ku sameyn doonaa halkaan kaligan aan ku sii waxaan ka dooran doonaa no, waxaan dhihi doonaa no border. So maadaama salkan aan joogo waxaan dooran doonaa bottom top border igu sameey. Okay, soo kale halkaana waxay igu sameysaa tick dooro. Okay, so
so ujeedaa soma waa uu ku sameeyey. Okay, so first halkan waxaan ku qori doonaa revenue ayaan halkaani ku qori doonaa soma. godkan silkani inay calaameyso waxay iga dhigtaa dollar, so ina yaray. Okay, so halkan waxaan ku qori doonaa revenue-ga, waxaan doonaa revenue igu qor. soo kale halkan waxaan ku qori doonaa advertising, soo kale salary, soo kale rent soma. so halkan waxay noqon doonaa total expense waxay noqon doonaa intaan isku soo dardaray. waxaan doonaa marka sum bracket fur, so intaan isku soo dardaraan doonaa, then bracketka igu xir, then waxaa dhahdaa enter. so net income maxaa noqon doona this service oo laga jaray total soma. so marka haddii saas ayaa loo sameeyaa horta designka fast. so fast designka aan ku tusi doonaa. okay, waa sameysa soma. so designka markaad sameysa kadib wax kale ma sameyn doontid, intaan ayay calaameyn doontaa, intaan ayay calaameyn doontaa, then waxaa dhihi doontaa waxay igu sameysaa thick. okay, so ay igu sameysa soma. then maadaama salalkan kale aan u baahnayn, kuwan kale maadaama aan u baahnayn, waan iska hide gareyn doonaa oo waan iska qarin doonaa. waxaan dhihi doonaa salkaas markaa joogo control shift right arrow, then markii waxaan soo baxaan right kligaan ku dhihi doonaa, then waxaan dhihi doonaa hide. okay, oo ujeeda soma. soo kale salkan ima waxaa ii dhahdaa control shift right, flaart hoos aadaysa click ku sii, then waxaa dhahdaa right click hide. so ujeeda soma. okay, maadaama aan u baahnayn kuwan, maadaama salalkan uu muuqda aan u baahnayn, waxaan sameyn doonaa, waxaan imaan doonaa view, then waxaan dhihi doonaa click. so mujeed waa uu iga dhigay. okay, so saas ayuu income statementi igu sameysan yahay. so ujeedaa soma. saas ayuu income statementi igu sameysan yahay. so haddaad color ku dari kartaa, saarid baa ka dhigan kartaa, haddaad white kana ku daysan kartaa. so it's up to you, waa to adig ku taala marka. okay, then waxaa rabaa see looga dhigaa dynamic income statement. waxaa rabaa halkaani markaan xisaab geliyo oo halkaan aan ka jaro, haddii faa'iido ay timaadan automatic halkaan net income inay u qornaato, haddii uu loss yimaadan automatically halkaan waxaa rabaa inay noqoto net loss. sidee saasi ku dhici kartaa marka? so fast aan ku tuso. had tusaalahan oo kale waxaa kasoo qabataa revenue-gana soo galin oo ahaa 500 oo kale. so advertising-kan inuu ahaa 25, salary-gana uu ahaa maxay leedahay 50, kanna uu ahaa 10. so mujeed. so waa 85 waa total expense keena, then net income keena waa 415. so waa net income. haddii loss u yimaado waxaa rabaa automatically halkaan loss inay noqoto. tusaalahaan oo kale advertising-ka iga baxo kale inuu yahay 400 oo kale, no aan dhaho 600 oo kale. so mujeed waa net income weli meeshaan. waxaa rabaa meeshaan markay saan timaado minus uu ka dhigi soma. so anin meeshaan minus noqoto marayo, waxaa rabaa automatically halkaan inay noqoto net income intaan tiro plus inay timaado. okay, fast horta halkaan ayaan waxaan ku xiri doonaa formula. so fast sida loo xirayaa formulada, salkaan ayaan click siin doonaa, iga tirtir net income, waxaan dhihi doonaa equal if bracket fur. so if markay timaado waxaa laga rabi doonaa ko logical test wax la yiraahdo. so waa maxay horta waxa aad rabto inaad test ku sameyso, ama aad dhahdo waxaani waa sax ama waa qalad. so fast waxaan rabaa logical testiga wuxuu noqon doonaa revenue-geena haddii uu ka wen yahay greater than, uu ka wen yahay maxaa leedahay total expenses keena ayaan u baahanahay. so saas markay dhaca kadib waxaan dhihi doonaa comma, waxaan dhihi doonaa double kalow dheh, double kalow waa dhahday soma. so double kalow markaa dhahday kadib waxaad sameyn doontaa, waxaa ku qori doontaa net income. so double kalowga ku xir, tan waxaa dhaabaa comma. so wax kale maaha, haddii revenue-geena uu ka wen yahay
expenses keena waxay dhahdaa net income hadday sidaasi dhici waasana waxaa iga dhigtaa net loss soo double kalo ifur waxaa dhahdaa net loss soo double kalo ku xir soo ku xirsama then bracketka ku sii xir then waxaa dhahdaa enter soo ma jeedid so automatically net loss ay halkan kusoo qormatay tusaalahaan oo kale hadda meeshaan haddaan ka dhigo $20 soo meeqa shaqaraad 420 ah net income soo halkan haddaan ka dhigo tusaalahaan 700 oo kale soo net loss automatically noqotay soo marka net loss halkan igu qoran marba halkan ay tira menisa igu qornaato waxaa rabaa tiro plus inay timaado soo waayo haddii marba net loss la arko xisaabta meeshaan taal inay khasaaro tahay waa la ogyahay soo menisku muhiim maaha marka meniskaas uma baahni marka sidee loo baabiin karaa soo halkan formula ku xiri doonaa waxaan dhihi doonaa equal if bracket for so bracket waa furta sooma wuxuu kaga baahan waxay leedahay logical testing wuxuu ku noqon doonaa surface revenue geena haddii uu ka wan yahay total expenses keena soo ma jeedid koma dheh soo kama waa dhahday then waxaad dhihi doontaa revenue geena waxaad ka jartaa total expenses keena okay koma haddii sidaas ay noqon waysana total expenses keena waxaa ka jartaa surface revenue geena okay in bracketka aan ku xiri doonaa soo wax kale maaha haddii revenue geena uu badan yahay oo uu ka badan yahay total expenses keena revenue geena waxaa ka jartaa total expenses keena haddii total expenses keena uu badan yahay oo uu ka badan yahay revenue geenan total expenses keena waxaa ka jartaa revenue geena intaas oo keliya ayaan dhahay then waxaan dhihi doonaa enter soo ma jeedid tiro plus aa timid soo halkan hadda ka dhigo 800 oo kale soo ma jeedid 70 oo net income ah soo halkan haddaan ka dhigo 600 oo kale soo ma jeedid 130 oo net loss ah so automatically asaas ka dhigi saas ayaa looga dhigaa dynamic income statement haddaad u baahan tahayna color waa ka dhigi kartaa soo ma jeedid aday gaar ku tahay haddaad wax ka dhigi kartaa color soo color si loo dhigo waa taqaanin soo ma jeedid oo color ka dhigi kartaa halahan kalena waxaa dhigi kartaa color kaloo gaare iga dhig tusaalahaan oo kale dis oo kale iga dhigaa dhigi kartaa soo meelahan haddaad artidna color waa ka dhigi kartaa oo soo ma jeedid adiga ku taala haddaad intaan color kala gooni waa ka dhigi kartaa waxaa dhigi kartaa color noocan igaaga dhig soo ma jeedid soo adiga ku taala marka habka loo u quruxsanaysid waa mid adiga ku gaara so sidaas ayaa waxaa loo sameeyaa designka income statement loogana dhigaa dynamic income statement soo cashirkeena maanta halkaas ayuu noogu egyahay waxaa idinkaga tegayaa sidaasi nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu